wafdi miisaan culus oo ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad culus oo ay ku qalin jabinayeen dufcadii afraad ee ka baxda jaamacadda Burco taasi oo tiradoodu dhammayd 141 arday oo isugu jiray hablo iyo wiilal kana qalin jabiyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Burco munaasabadan iyo ahayd mid si asra loo soo agaasimay ayaa gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Salebaan Dirra Cabdi oo mahadnaqi amaanba u soo jeediyay ka soo qaybgalayaasha munaasabadan iyo waliba ardayda ka qalin jabisay maanta waanu ilaalinaa tirada ardayda 141 baa maanta halkan ka qalin jabinaya oo 6 kulliyadood ee laydin sheegay waanu ilaalinaa runtii annaka waliba ka duulayna siyaasadda dawladda iyo ilaalinta boqolaal ka badan waa soo saari lahayn laakiin deetayada daruuriya ugu dambeyntii waxaan si rasmi ah aan ugu dhawaaqay runtii ugu dhawaaqaya dhammaan ardayda dhamaysatay ee halkan fadhida inay si rasmi ah ay maaragtay ay u qalin jabiyeen inayna iswada taagaan gudida sare ee jaamacadda qaar ka mid ah ardayda qalin jabisay iyo sidoo kale madax ka socotay jaamacadda Nugaal Laascaanood iyo aqoon-yahano reer Togdheer ah ayaa iyaguna hambalyo u diray ardaydan waxaana ay wax lagu farxo ku tilmaameen inay dalkan u soo baxayaan aqoon-yahano dhisan arkaysaa wasiirada halkan fadhiya aad bay u mahadsan yihiin ka soo qaybgalida ay ka soo qayb galeen qalin jabintii 140 arday ee jaamacadda Burco inaan ugu hambaliyeeyo ardayda xafladan loo camiray ee loo qurxiyay ee loo sharfay oo ay maalintoodii tahay sida xaqiiqadu tahay anigoo og awoodda dawladeed iyo haynteena yar anigoo og waxaan ku talin lahaa in la jiheeyo ardayda oo la dhiirigeliyo sida cilmigii ay barteen shaqo ugu abuuran lahaayeen jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood baan ku darayaa hambalyo iyo salaan waxaan u horeysiinayaa ardayda qalin jabinaysa ee kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Burco duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraade iyo barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye ayaa iyaguna wax lagu farxo ku tilmaamay in ardaydan ay u soo baxeen magaalada Burco ee gobolka Togdheer iyo guud ahaan dalkan Soomaaliland waxaana ay amaan iyo bogaadinba u soo jeediyeen maamulka jaamacadda Burco inaan mahad ballaaran u celiyo ardayda halkan maanta ku qalin jabinaysa 140 arday in ka badan baan ku qalin jabinaysa waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loogu mahadnaqo oo dadka inala midka maanta geeska Afrika ku nool qaar kamid ah aanay intan oo maanta graduate gareynaysa aanay haysan runtii aad baa waa xafladii labaad ee aan ka soo qayb galo munaasabad qalin jabineed oo gobolka Togdheer waa runtii wax lagu faano oo wuxuu ahaa lagu diirsado wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Geedole wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Nuur Faahiye iyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka hadlay munaasabadani ayaa iyaguna waxa hadaladoodii kamid ahaa ardada qalin jabinaysa 141 kan waxaan leeyahay hambalyo waan idin hambalyeynaa maskaxdiina ka saara mid ka dardaarankan ku soo koobay hadalkayga waxa weeye maskaxdiina waxa ka saartaan waxa la yiraahdo tahriibtu ilkii la magacaabay ee wasaaradda waxbarashada in maalinteedii afraad aan nasiib u yeesho dufcadii afraad ee jaamacadda Burco qalin jabinteedii inaan ka soo qayb galo farxad weyn bay tahay waa in siyaasadeena ugu horeysay waliba anigu aad baan uga shaqayn doonaa insha Allah inaynu soo celino dugsigii Burco oo sidiisii iyo kii Hargeysa iyo kuwa kale oo fara badan insha Allah hadii Ilaahay nala qabto oo ah dugsiyada farsamada waxaan ugu horeyn hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa ardayda ka qalin jabisay jaamacadda maanta ee xafladoodan loo dabaaldegayo ee bulshada halka fadhida iyaga u fadhido waftiga yimin iyaga u yimi waxaan leenahay waa idin hambalyeynaa Ilaahay waxaan idinka baryaynaa inuu wixii aad barateen noqdo wax idin anfaca idinka iyo ubadkiina iyo waalidkiin
sidoo kalena anfaca dalka iyo dadka anfaca waxaana leeyahay waanu idin barbar taaganahay waa idinkala shaqaynaynaa wixii suurtagal aan idinla qaban karana ka dowlad ahaan sidii wasiirkii iga horreeyey sheegay waa idinla qabanayna geesta kale qaar ka mid ah ardayda qalin jabisay ayaa dareenkooda uga waramay TV-ga qarankan Soomaaliland runtii aad baan ugu faraxsanahay dareen aad u farxad badan weeyaan waxaan aad u salaamayaa uguna mahad celinayaa waalidiintayda aabahay jaamacaad la maray iyo hooyada Nimco Cabdilaahi Xasan iyo sidoo kale macallimiintii wuxuu soo baray maamulka jaamacadda magacaygu waa Cabdiriis Saad Cali munaasabadan weyn maanta aad baan u hambalyeeynaya waa maalin waa safar dheer aan soo waday waxaan ka qalin jabiyay jaamacadda Burco gaar ahaan kulliyadda shariicada islaamka aad iyo aad baan u faraxsanahay waa maalin taariikhi ah magacaygu waa Sagan Yuusuf Ibrahim waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay maanta aan ka qalin jabiyay community development ama horumarinta bulshada waliba galaaskii labaad waxaan ku faraxsanahay yacni ma qiri karo ma sheegi karo ma qiyaasi karo farxadda aan faraxsanahay waxaan leeyahay dhalinyarada ila midka ah ee suuqyada jooga ayaa waxbarashadoodii ama ka jeestay aan sabri waayeen sanadooda loo sabriyay oo samrayaan leeyahay ICT-ga ka waran dareenkaaga iyo maanta dareenkayga maanta aad iyo aad buu sareeyaa maadaama nahay ardaydii ugu horeysay ee ICT-ga ka qalin jabisay jaamacadda Burco anagu muddo 4 sano wax soo baranay aad iyo aad baan u faraxsanahay dadka ka qalin jabisay kulliyadda businesska muddo 4 sano soo waday aad baan ugu faraxsanahay dhammaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka gaar ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland waa buka Carabileeye aad iyo aad baan runtii maanta farxad dareemayaa waxaan ardayda ka baxday qaybta maamulka maareynta jaamacadda Burco aad iyo aad runtii waxaan halkan hambaliyo uga mahadnaqayaa إلهي سبحانه وتعالى أولاً وقهرين ويدي سيد محمود هارية مروير ومخير عبد الله عبد الرحمن السلام عليكم والله ما قاعد يقول يدي محمد عبد الله وحنا أنا ما صاينيس وحنا هكذا كسلام يا مرك هراء هو يدي لبي يدي والدي لبر برتقنا متدار دير سودي جنيه مرك هراء هكذا كسلام يا تيفي كقرن كسومالان وحن مرك حكتوم هذا اللي يا والدينتي وقربها يودل كجوديس كذا وحن مرك لبعضهم بليين يا أرض الجامعة برعاك قلنا جبسي ما أنتوا إسقالت ممكن بيش استحال لبعض كل شيء طبعا فكلده kala duwan waxaan si gaar ah ugu hambalyeynaya ardayda kulliyadda beeraha ugu dambeynna waxa halkaasi wasiiradu shahaadooyinkii ku gudoonsiiyeen 141 arday ee ka qalin jabiyay jaamacadda Burco kuwaasi oo wajigooda laga dheehanayay farxad iyo shucuur muujinaysa sida ay ugu faraxsan yihiin qalin jabinta Cabsa Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco